wafdigii ka socday xukuumadda Somaliland ee ku sugnaa dalka boqortooyada Ingiriiska ayaa kulamo si weyn loo soo agaasimay la yeeshay xildhibaano sidoo kale xubno ka tirsan dowladda dalkan Britain. kulamadaas oo ka dhacay baarlamaanka looga arrimiyo wadankan Britain ayaa wafdiga Somaliland waxaa kamid ahaa wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Somaliland, wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda, ergeyga Somaliland u qaabilsan wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya, sidoo kale xubno ka socda ururada rayidka. kulankan ka dhacay baarlamaanka wadanka Britain ayaa waxaa goobjoog ka ahayd wasiirka wasaaradda dekedaha iyo badda dalkan Britain Mrs Nusgani oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka wadankan Britain, sidoo kale wasiirkii hore arrimaha dibadda wadankan Britain Boris Johnson iyo Bob Sandy oo ah xildhibaan isaguna ka tirsan baarlamaanka wadanka Britain. kulankan ayaa waxaa lagaga hadlay qadiyadda madax banaanida Somaliland, sidoo kale kaalmooyinka dowladda Britain ay ka geysatay dalka Somaliland. wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Somaliland Marwo Shukri Xaaji Bandare ayaa faahfaahin ka bixisay ujeedada shirkan, sidoo kale kulamadii ka dhacay maanta baarlamaanka wadanka Britain. Bismillahir Rahmanir Rahiim. runtii Ilaahay baa mahad leh, si wanaagsan kulankaas noo dhacay, si wanaagsan baan runtii anaguna u present karaynay waxa la yiraahdo aanu markaa doonaynay inaanu gudbino iyo sida wanaagsan oo ka aqbalay iyo discussion-ka ka soo baxay ama maaragtay sidii maaragtay la soo xogoreysanayay iyo xogtii ka soo baxday waxaan runtii ku qanacnay markay. wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland oo ka hadlay shirkan ka dhacay baarlamaanka dalka Britain ayaa wuxuu yiri: Bismillahir Rahmanir Rahiim. wallahi shir muhiim ah waa shirkan caawa ka dhacay baarlamaanka Ingiriiska. runtii waxa ka soo qayb galay xildhibaano labada aqal ee wadanka Ingiriiska, waxa ka soo qayb galay diblomaasiyiin iyo wasiirro ka socday dalka Ingiriiska iyo wadamada kale ee xafiisyada kale dalka Ingiriiska. shirkan waxa laga wada hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin sidii Somaliland looga taageeri lahaa qadiyadda ictiraaf raadinta. xildhibaan Sack Gordon Smith oo si weyn ugu ololeeyay qadiyadda madax banaanida Somaliland ayaa sheegay in Somaliland ay horumar fara badan ay ku tallaabsatay. I think it's been a fascinating event. We've had a room full of very talented, very dynamic, very intelligent people who have put a lot of ideas on the table. But the one thing that unites everyone dalka Somaliland waa dal buuxiyay dhammaan shuruudihii dal looga baahnaa, waxaana ku guuleysteen muddo 30 sannadood ah iyagoo oo ku jiray go'doon siyaasadeed in ay dhisaan dhammaan kaabayaasha dhaqaale iyo waxyaabihii looga baahnaa dal madax bannaan. waxa aan aad ugu faraxsanahay inaan si weyn ula shaqeyno isla markaana aanu ka dadaalno sidii loo horumarin lahaa qadiyadda madax bannaanida Somaliland, ayuu yiri Sack Gordon Smith oo ah xildhibaanada sida weyn ugu ololeeya qadiyadda madax bannaanida Somaliland. Marwo Sacdi oo ka qayb gashay kulankan ka dhacay baarlamaanka Somaliland kana socotay ururada bulshada ayaa waxa ay tiri: wallahi kulankaasi aad iyo aad buu wanaagsanaa. iyo Somaliland waxa kale la soo qaaday aqoonsiga dadaysiga iska muhiim ah. waxa kale la soo qaaday sidaynu u helayn maxay tahay horumar loo helahay dawladdu inoo caawin lahayd waxyaabo la mid ah. waxa saamka wax ku wareegayeen su'aaluhu meelaha markaad eegto Sacdiya aad baa looga hadlay wasiirro fara badan. wasiirkii hore arrimaha dibadda joogay wadanka Britain ma dareemaysaa in qadiyadda Somaliland ay meel sare ay waqtigan xaadirka ay soo gaadhay? wallahi horta haddii aan laga hadlino aan meel sare la gaarsiin meel ba qaban mayso. waynu u baahanahay inuu mayorkii hore inuu la joogo oo ay maxay tahay MBA noo yimaadeen oo runtii dad badan oo xiiseynaya caawa ka soo qayb galeen. waxay ka mid tahay runtii waxyaabaha aynu u baahanahay, laakiin anigu waxaan qabaa dadka maxay tahay dibadda jooga weli riyaas baruhu weli xoog badan may saarin in aqoonsiga laga qaato. waxay la tahay aniga in dhexda loo xidho oo sidii loo keen lahaa aqoonsiga way kulliga waxa leeyihiin MBA leeyihiin ama dad idin matala waxa leeyihiin maxay tahay meela dad u footaysan codkina siisaan waxa ku noogashin deegaano badan oo leh waxay tahay wax bedeli kara. Come on guys. waxay la tahay in shaqo bilowday. wakiilka Somaliland u joogta wadankan UK Marwo Ayaan Cashuur ayaa iyaduna ka hadashay ujeedada shirkan ka dhacay baarlamaanka wadanka Britain. wallahi shirkan waa shir aad iyo aad qiimo u leh. wadiga arkayso wasiirkii hore arrimaha dibadda joogay waxa la yiraahdaa inagu waxaan ku joognaa runta group aad u xoogan
maxaa qadiyadda aad baa looga hadlay dhibaatada ay nagu hayso aqoonsi la'aantu maxaa cimiladan xayawaanka laga baaxustarayo aad iyo aad ugu faraxsan inuu wasiirkii hore kasoo qayb galay wasiirkii kale oo maxaa la yiraahdaa badda wasiirka badda uu kasoo qayb galay annaguna inta sharaf bay noo ahayd inuu wasiiro taqaana oo garanaysa maxaa la yiraahdaa arrinkan laga hadlayo inay maxaa la yiraahdaa joogtay iyo wasiirka iyaga arrimaha dibadda oo hore iyo wasiirka xogeenka iyaga arrimaha dibadda imikaba iyo dad fara badan oo reer Somaliland shirkan ka dhacay baarlamaanka waddanka UK ayaa wuxuu ku soo dhamaaday jawi farxad leh dalmar telefishinka qaranka Somaliland baarlamaanka UK